weli waxaad daawanaysaan daawadayaal barnaamijka jiida hore ee SNTV daljir maareeyaha hay'adda NIRA ayaa sheegay in la daabacay dhammaan kaararka dadkii hore isaga diiwaan geliyay hay'adda maareeyaha hay'adda aqoonsiga qaran ee NIRA Cabdiweli Timacade ayaa sheegay in la daabacay kaararka muwaadiniinta hore isaga diiwaan geliyay hay'adda NIRA kuwaas oo ay hadda ka socoto qaadashadooda xarumaha hay'adda bismillaahir rahmaanir rahiim salaan dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan maanta rabnaa inaan update ka siino shaqooyinkii muddooyinka ugu dambeeyay waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno aan saxaafadda maanta ugu yeerno in dhammaan kaararkii dadkii isdiiwaan geliyay la daabacay intooda badanna ay ka socoto qaadashadu magaalada Muqdisho iyo Baydhabo magaalooyinka dadka ay iska diiwaan geliyeen waxaan rabnaa inaan la wadaagno oo aan u xaqiijino dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo isdiiwaan geliyay inay heli doonaan kaarkooda aqoonsiga si dhaqso leh oo uu daabacan yahay waxaan dareemaynaa markii ay bilowday kaar qaybintu inay maaragtay dad fara badan oo kala duwan ay xarumaha yimaadeen taasoo ay adkaatay bixintii kaarka iyo diiwaan gelintii labaduba waxaan ka codsanaynaa shacabka Soomaaliyeed inay nala shaqeeyaan oo la shaqeeyaan saraakiisha hay'adda iyo saraakiisha amniga sugaya goobaha amnigooda oo ay ilaaliyaan nidaamka bixinta kaar qaadashada runtii waan uga cuudaaraynaa in kaarku uu muddo qaatay dadkuna ay kuyo dheer ay ugu jiraan inay kaarkooda qaataan